soo dhawaada jaalayaal maanta waxaan rabaa inaan idin soo bandhigo challenge cusub oo uu Mr Beast sameeyay wuxuuna ku saabsan yahay in yarkan oo Blake lagu magacaabo uu ka difaacdo lacag half million ah ama 500 oo kun oo dollar haddii uu ka difaacdana isaga ayaa ku guuleysanaya lacagtana waxa uu ku gali doonaa 4 challenge oo midba midka kale ka sii adag yahay sidoo kale Blake hadda ka hor ayuu challenge-gan kula tartamay Mr Beast waxa uuna ku guul dareystay inuu difaacdo 250 kun oo dollar maanta se waa laba jibaarka tii uu horey u qasaariyay haddaba ogow ficladan waxay u sameyn doonaan si dhab ah challenge-ga koowaad shantan taangi waxaa loogu talagalay in lagu burburiyo lacagta half million-ka ah lacagtii badbaadana tartamada kale ayuu ku sii gali doonaa Blake waxaa la siinayaa card ay lacag ku jirto waxaana loogu talagalay inuu ku soo iibsado wax kasta oo uu ku difaacan karo lacagtiisa si aysan uga burburin taangiyada waxa uuna ku dhisan karaa wax walba oo uu doono balse waxa uu haystaa 24 saac oo kaliya isla markii ayuu hawsha ku dhaqaaqay saddexdii saac ee ugu horeysay wuxuu ku bixiyay raadinta gawaarida burbursan iyo container kuwaas oo uu ku soo iibsaday 30 kun oo dollar intaas kuma filnaanna wuxuu sii raadiyay haamaha biyaha lagu shubto isagoo intaas u raacinaya inuu ku rabo 12 saac gudahood markay ku adkeeyaana wuxuu u sheegay inuu laba jibaari doono lacagta 15 kun oo dollar ayuuna ka bixiyay markan waxa uu harsan 18 saac wuxuuna u sheegay qorshaha uu damacsan yahay inuu taangiyada kaga difaaco lacagta waxa uu qorshaystay inuu lacagta ku daboolo hal container kadibna uu hordhigo 3 haamood oo ay biyo ka buuxaan kadibna uu ka soo horeysiiyo container ay ka buuxaan bulkeetiyo iyo waxyaabo adag waxaana intaas oo idil ka soo horeeya gawaarida duugta kadib wuxuu keensaday niman u dhisa qorshihiisa xitaa haddii uu taangiyada ka difaaco lacagta weli waxaa horyaala 3 challenge kale oo kala adag habeenkii oo idil waxay dhisaan difaaca markan 5 daqiiqo oo kaliya ayaa u harsan markuu waqtiga dhamaadana waxaa loo sheegay inay joojiyaan wax walba oo ay hayaan 20 madax oo kala duwan ayaa laga tuuri doonaa 5 taangi isla Blake ayaa midkii ugu horeeyay ridaya waxaana isxigxigaya 19 madax oo kale kadib waxay ku degdegaan inay soo hubiyaan haddii lacagta ay u badbaaday nasiib wanaag way badbaaday steepkii koowaadna sidaas ayuu uga gudbay isla markii waxaa loo sheegaa inay u gudbayaan steepka labaad waxaana laga rabaa in 24 saac ee soo socda uu isku diyaariyo sidii uga difaacan lahaa lacagtiisa steepkan waxaa lagu sameyn doonaa qaraxii ugu weynaa ee abid challenge lagu sameeyo dhanka YouTube iyo Mr Beast waxaa lacagtiisa lagu hareereyn doonaa bambaanooyin aad u halis badan haddaba waa kan qorshihiisa difaaca wuxuu meesha ka saarayaa wixii geed ah ama alwaax ah wuxuu isku soo dhaweynayaa containerada haamaha biyaha ayuu ka soo horeysiinaya darbi ayuuna ku dhisayaa kadibna gawaaridii jajabneed ayuu hordhigaya waxay kaga xabsiinayaan in qaraxan uu xitaa celin karin qolka keedka ee bangiga maadaama uu horey u shaqeeyay 24 saacadood oo isxigta markan wuxuu la dardaarmayaa kuwa qorshaha u dhisaya si uu u nasto maadaama uu daalnaa waqti badan ayuu hurday waxa kaliya uu haray 6 saac 6daas saac gudaheed Blake wuxuu isku dayay inuu buuxiyo meelaha uu ka daciifsan yahay difaaciisa markii 4 daqiiqo u dhineed wuxuu bilaabay inuu rusheeyo dusha sare ee containerada habeenkii waxaa la qarxiyay bamkii ugu weynaa wuxuu difaac uga dhigay lacagtiisa 17 gaari 6 haamood iyo 4 container balaan aragno inay intaas badbaadiso markii la qarxiyay isla markiiba Blake wuxuu u soo ordaa inuu hubiyo lacagta wuxuu ka qaadaa caradii uu lacagta dul dhigay markuu uu hubiyana wuxuu arkaa inay badbaaday wuxuuna sidaas uga gudbay steepkii labaad waxaa la weydiiyay haddii uu rabo inuu ogaado challenge-ga saddexaad waana la tusay steepka saddexaad waxaa lagu sii deyn doonaa gaari gubanaya haddana gaasoliin uu ka buuxo waxaa loo sheegaa inay waxyeeladiisa ay badan tahay waxa uu difaacayo kaliya ma ahan gaariga gubanaya sidoo kale waxaa difaac uga baahan gaasoliinka oo holac ka sii dhalinaya meesha wixii intaas ka dambeeyana waxaa la siin doonaa surprise qorshaha difaaciisa saddexaad wuxuu yahay inuu containerka ay lacagta ku jirto uu ku dhameystiro shub 2 inuu container labaad uu dusha ka saaro midka uu lacagta ku jiro maadaama uu daalnaa wuu iska seexday si uu maalinka xiga u dhameystiro wuxuu qorshihiisa ku daray inuu container kale uu u dul dhigo qaab geesgees ah si haddii gaariga gubanaya uu ku dul dhaco uu ugu sii dhaco dhulka si containerkan uusan u dhicin wuxuu taako uga dhigay alwaaxyo balse go'aan fiican ma ahayn maadaama meesha uu dab imaanayo alwaaxdana ay sabab u noqon karaan inay lacagta gubato waxaa loo sii sheegay in marka uu gaarigu soo dhaco ay xiigi doonto waxyaabo holcaya oo dhanka dambe laga soo ridi doono Blake kuma talagelin midaas mana haysto wax kale oo uu ku difaaco balse waxaa ka soo daahay biyihii uu dalbaday kaliya waxa uu haystaa 90 sekin wuuna ka gaarsiiyay rushaynta steepkii saddexaad ayaana bilowday gaarigii holcayay si fiican ayuu dabka u gaarsiiyay alwaaxdii uu Blake isticmaalay kuwaas oo sababay inuu dabka sii ziyaado markuu Beast weydiiyo waxa dabka holcinaya ee uu dusha sare dhigay wuxuu u sheegaa inuu dhigay alwaaxyo uu container ku taakeeyay Beast ayaa ku dhahaya ma meel dab uu ku soo dhacayo ayaad alwaaxyo dhigtay waxaa weli socda hulcinta gawaarida rajadii Blake-na waxay u muuqataa mid sii idlaanaysa dabkana wuxuu socday saacad iyo bar alwaaxyadii uu meesha dhigay ayaana qayb ka qaatay dabka faraha badan inuu iska difaaco ayuu ku talagalay balse khasaaro ay u soo jiideen wuxuuna ka war helay inay gubatay lacagtii sidaas ayuuna ku guuldaraystay waana guuldaridiisii labaad dadaal badan ayuu geliyay haddana waxba kama faa'iidin challenge-gana halkaas ayuu ku xirmay Blake inta uusan bixin waxaa loo soo bandhigaa 2 doorasho
doorasho oo kale ah inuu qaato $100,000 iyo in la siiyo Janice uu muuqaal kale kaga qayb galo. Wuxuuna doortay inuu mar kale ku soo laabto una muuqaal kale qayb ka noqdo. waxaana muuqaalkaas la soo dayn doonaa bisha 2 ama February. aniga ayaan idin ballan qaadaya inaan degdeg idinku soo gaarsiiyo si uusan ku dhaafina. subscribe saaro channelka, muuqaalkana like garee. waana ku mahadsan tahay daawashadaada jaalle.